gudoomiye ku-xigeenka degmada Togwajaale Mursal Nuux Cismaan ayaa jawaab ka bixiyay hadallo ka soo yeedhay murashaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani. xisbiga wadani shalay markay halkan ka hadlayeen degmada Wajaale nin weyn oo ku-xigeenka sheeganayay ayaa Wajaale hadana ay kula kacay. Wajaale wuxuu yiri tagfi beelay Wajaale tagfi meelay adiga waxa weeyii adiga tagfile oo magacaaga maanta laga bilaabo waxaan ku bixinanaa tagfi baan ku bixinanaa. xisbiga wadani wuxuu caadeystay inuu markasta cay iyo aflagaado oo kula kaco gobolka Gabiley. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Ciro isaguna wax aboorajeesa kama bixin cayda mar walba ay hoggaanka xisbigiisu ay kula kacayaan. waxaad ka warqabtaan maalintii sallaxday joogeen shakhsiyaad kamid ah xisbiga wadani oo ka soo jeeda gobolka Gabiley oo ku saaqiday siyaasadda inay aflagaado aan gobolka Gabiley u qalmin ay kula kaceen. Cabdiraxmaan Cirana oo shacabka garaacay. Cabdiraxmaan waxa ku leeyahay gobolku waa kii hoggaanka aaga xisbiga wadani oo caayay eedadna shacabka tumaysay. xisbiga wadani gobolka Gabiley cod uma hayo. ta kale waxa ka daran waa xisbi taageeradiisa soo safaari gareeyay oo ku wata baabuurta una qodbaday inta uu baabuurta ku sidoo kaliya. ta kale waxa ka daran waa xisbi taageeradiisa soo safaari gareeyay oo ku wata baabuurta una qodbaday inta uu baabuurta ku sidoo kaliya. xaqiiqatan shalay Wajaale joogay waxa weeye dadkii baabuurta lagu siday ayuu buu qodbaday. Gabileyna saasoo kale yahay awdan la saasoo kale yahay. waxa la yaab leh maalinta hadaba doorashadu dhacayso ee baabuurta la dhigo ee safaariga la waayo ma garanayo halka codka ka yeeri doono. gudoomiye ku-xigeenka degmada Wajaale Mursal Nuux Cismaan sidoo kale waxa uu sharaxaad kooban ka bixiyay mashaariicaha horumarineed ee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Siilaanyo ka fulisay magaalo ganacsiyeedka degmada Togwajaale. Wajaale xukuumadda maanta talada dalka haysa ee uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo waxay ka fulisay boqolkiiba 95 mashaariicdii uu ballan qaaday madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya. xukuumaddii daahir yaale Wajaale biyo may lahayn, cusbitaal may lahayn, sariimad may lahayn, kawaan xoolaha lagu qalan may lahayn, guri martiyeed may lahayn gurigii kasamka ee maanta gabagabada ah ee wasaaradda maaliyaddu fulisay iyadoo fulinaysa awaamirtii madaxweynaha qaranka. Wajaale intaasaba way ka qabsoontay horumarka ifaya ayaa ka socda oo xisbiga kulmiye iyo xukuumadduba ay fulisay. xisbiga kulmiye kama baqa qabo inuu doorashada ku guuleysto. guushii Mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxa ka hadhay 45 cisho. waa xisbigii horumarka, waa xisbigii midnimada, waa xisbiga horumarkiisii maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland sida cadeeda uga ifayay way. shacbigana maanta maalintii la qaldayay maaha. waa maalin cad oo la isqaldayn oo waagu bariyay. gudoomiye ku-xigeenka degmada Togwajaale Mursal Nuux Cismaan waxa kale oo dhaliila huwiyay xisbiga mucaaradka ee wadani. xisbiga wadani waxa isugu tagay oo hormood ka ah xisbiga wadani waxa la wixii qarankan baabiyay hantidoodii qaatay aan ogolayn qadiyada iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka yimid koonfurta ayaa maanta leader u ah oo nustambeed u ah oo la og yahay. waxaad arki doontaa xisbiga wadani tusbax furtay buu noqday. maalin walba waa la iska casilaa sababta la iska casilaya waa xisbi aan lahayn tayo badan, quality badan, kala dambayn aan lahayn, rule and regulation aan lahayn. shacbiga gobolka Gabiley maanta maalintii la qaldayay ma waxay dooranayaan xisbiga kulmiye, xisbiga horumarka
xisbiga maanta waxqabadkiisii uu ka ifayo gobolka Gabiley guushii Muuse Biixina waxa ka hadhay 45 cisho insha Allah ta'ala gabagabadii gudoomiye ku-xigeenka degmada Wajaale Mursal Nuux Cismaan waxa kale uu hambalyo u diray guud ahaan taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee uu ku leeyahay gobolada Soomaaliland waxa kale oo u dirayaa gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan taageerayaasha cudud leh ee uu ku leeyahay xisbi xaakimka talada dalka haya wana hambalyeynaya dhamaantiinba Soomaaliland oo dhan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan iyo taageerayaasha cudud leh ee uu ku leeyahay xisbiga maanta talada dalka haya ee uu hogaaminayo rugcadaaga mujaahidka Muuse Biixi Cabdi wa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka Case